barnaamijka maxaa cusub iyo caweyska unkad media soo daawadayaal meel kastoo aad joogtaan habeen waan mar kale waxaa inoo sii socdo halkiisii aynu ka saamba qaadaynaa barnaamijkeenii maxaa cusub iyo caweyska warbaahinta unkad media caawana waxaa marti noogu aqoon-yahanad Najma Maxamed oo ka mid ah howlaha reer Somaliland gaar ahaan kuwada ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa waanu jeclaysanay inaan idinku soo casuuno isla mar ahaantaasina aan weydiino mowduuc muhiim ah waan filaynaa inuu dhalinyarada wax badan ka tari doono ka hor dhici maayo aan soo dhaweeyo aqoon-yahanad Najma Maxamed. Najma soo dhawo walaal. aad baad mahadsantahay walaal si fiican u dhawahay channelkaaga aad baan ugu dhawahay. waa tahay mowduuca aynu bilaabi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo bal waxaad iga warantaa mowduuca muhiimka ah caawa noogu tala gashay waxyaalaha ku saabsan yahay iyo mawaadiicda uu ka koobnaan doono. بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn mowduucan caawa idinku tala galay waa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah jeclaysi inaan la wadaago dhalinyarta Somaliland ku nool dhalinyarta Soomaalida oo dhan mowduucan waa mowduucan isleeyahay in badan runtii haddii qof uu dabaqo wax badan ka faa'iidi doono waa mowduuca loo yaqaano athiqatu bin-nafsi ama self confidence عشقته بالنفس كلسوني بالنفس إنه قف كلسون هذا نفتي إن كبرا أنتوا كلسون هاي ضدك كلامه وحكى لكم هاري رئيسان وانقرت هاي marka hadii aan ugu horeyn bas iyo qeexitaan guud kalsoonidu waa maxay kalsoonidu horta waa inaad u aragto naftaada mid wax soo saari karta ama aad wax kordhin karto naftaada guul la gaari karta naftaada marka aad ku kalsoonaato ayaad higsan kartaa waxaad rabto kalsoonidu waxay siinaysaa awoodaad hawl ku qaban karto waana furaha ugu muhiimsan ee guusha ku horseedi karto horumar aad weyn inaad samayn karto kalsoonidaasi marka sheeko yar baan halkaa dhexgelinayaayo shiniba waxa lagu yidhaahday waxa u yimaaday koox baa u timaaday waxay ku tiri waxaan casuuminaa shiniyey madaxdii kaynta marka waxaad samaysaa madaxdii keenta ban casuumina waxaad samaysaa malab noo diyaari kadib waxay dhahaysaa malabkii imika gamaag dhawa oo geedkii wixii aan doonayba wadan kale keen ku taala ayay iga jirtaa kadib wayna xayaan waxay oranayaan madaxnimo soo dhowdahay maxaa markaa xal noqonaya kadib waxay si kalsooni la u dhahaysaa xilliga idinku ii ballamiseen malabka waa iga heysaan ee idinku diyaarsada weelkii aan idinku shubay lahaa marka shinidu aakhirkii maalinka la ballamiyay isla maalinkeedii waxay oranaysaa intay u timaaday iyagii ka soo horeysa ballankii ay manasaax ku oranaysaa malabkii weelaan idinku shuba keena taasina waxay muujinaysaa kalsooni ay nafteeda gelisay taasi oo horseeday inay wadanka kale xilligaa ku gaadho waqtigaa koobanna ku samayso malabkii laga rabay marka halkaa waxaan yaro gelinaya iyadoo kale in yaro odhaaha ha ka dayrin weligaa noloshaada la deris ha ka dayrin weligaa noloshaad la deris tahay ha u doodin abidkaa mid kale ku dayashaa markaad mar in badan naftaada aad kalsooni geliso waxaad ka dheeraanaysaa in badan barbardhigga naftaada dadka kale inaad barbardhigto waan gartay aabe ayaa inankiisa waxa uu rabay inuu maxaa la dhahdaa inuu baro waxyaabaha kalsoonida nafta sidoo kale maxaa la dhahdo qanaacada qofku inuu kordhisto kadib waxa uu sameynaya waxa soo qaadaya laba buskud weyn iyo buskud yar buskudkii yar buu siinaya ilmihii baa odhanaya aniga buskudka weyn sii dina wuu bedelay hoo buskudka weyn qaada buu ku odhanaya kadib buskudkii yaraa ayuu kusoo kordhisanaya buskud kale kadibna ilmihii baa haddana odhanaya haddana buskudka kale waxay labaad haysataa aniga laba iga soo dhig kadib wuxuu ku odhanaya abuu odhah cajiib wiinankiisa ku odhanaya cindamaa taquumu binaa'a sacaadatika lima ladayk satakunu saciidan tamaaman haddii aad ku dhistay farxadaada waxuu qof kala haysto waxa agtaada yaalamaye waxaad noqonaysaa qof farxad in badan aad faraxsan tahay laakiin in danayd sacaadatka على ما لدى الشخص الآخر ستكون دائما حسينا هدي أتكون بستو فرحة هذا وحي قفك لها يستو وحي شيء وقفك له كاغا فديلي أمو وهيستاد فرحة كدايدو وحن نقول دونتا هذه يشرمي مرقة بدن أيا نقطة marka abaha siinkiisa waxa uu baraya inuu qanaaco naftiisa yeesho kuna kalsoonaado waxa agtiisa yaala uu ku fiican yahay boqolkiiba boqol qof kale si uu noqdo qof mar walba faraxsan marka mawduucan siqatu binafsi waxaan dhowr ciwaan ka kala hadli doonaa ciwaanka ugu horeeya waxa weeye waxyaabaha lagu kordhiyo inaad kalsooni naftaada ku kordhin karto maxaa kamid ah waan gartay waxa kamid ah
مواجهة المخاوف وعدم التخويف تجنبها إن ما أدواجهده waxyaabaha khaawifta yani wax oo laga baqdo wada muwaajih kartaa adigoo kalsooni naftaada gelin waxa waad ka gudbi kartaa qodobka labaad waa at-tawaqquf can muqaaradati an-nafs bil aakharin waa inaad ka fogaato ama aad ka joogsato inaad barbar dhigto naftaada dadka kale qodobka saddexaad wada ahdaaf as-saghira الواقعية إن دكتو أهداف كواسو أهداف يريرو واقعية يعني أرسمين كرسوني أديقو راعنيا تحديد النقاط القوة والإنجاز حديدين النقاط كأتكو أود بلانتهاي قدوك التوقف عن الانتقاد النفسي إن كتشوفتو محل هذا إذا نفترض كل رمالشي في عنو كله التحدث مع النفس نفترض إن الله شيء كيستو ونفترض وح وأحسن قبضات ترى ما أنت والله وح بنسبة قبضي قرارك سيسعود قفك مفتي سين ونريك لي كريان نقطة المحادثة النفس بالأشخاص الإيجابيين إذا كل هرنات أما كأج مقدان ضدك هذه يشير إيجابيين يعني هلك ونأكسن حكا إيجا هذه يشير لصاحب كأج مقدان ضدك وأنت وناتن كشقية الاهتمام بصحة النفس قدر آدي أدقون يمسلم كل شيء حاجة كرسوني ده قفك اهتمام سيو عن شمات كيسة وهديه وما هذا وحا محل هذا تصالحان وكلا وهول خطر نفتي سجل نيسا ودا كلسوني مقلاي من عافيمات كيسبيدي بس ما ها أدقو كلسوني يلنا عافيمات كاغا دكتوان عافيمات كاغا يلالسا هذا وحيابه وحيشيرا نفتكو محل وجود ويني ضد قاربة أورانا يعني قص كلسوني نفتو ويرتاي محن استعمالها دوين سدية محن كيف يعالج نفسي من عدم الثقة يعني وحيجا مقام أورانا كلسوني دي نفتي محن سدين دوية وأنا سمي سابو قلب كاسي قلب كم روحوها إن تكرو قادسو قلب كم حوي يقف في دي ما بها يستبع محن كود دوية مركا قلب كم كواد أورانا تحديد نقاط القوة والضعف واحد سبر بديجة وحاول كل حقته يوحك وتكون ضعيف سنتها أديك واحد كنت هنا هذا كل رجلني ولا والله هو لو أنا بلاي أنت هو كفي عنتاي واحد كل حتى أنا لو أنا أنت هو كل حتى أنت إسكاياتي سيدك لكن أهداف واقعية وين أديت ستابو كلية ممارسة الرعاية الذاتية إلى علم نفرد أصلا يسطو أودتين شحابي وكل إلى علمية إن تسكت ترتو لما دلعينت عن أديك وحبك سو محل داودي ممارسة التعاطف مع الذات سيدك إن نحسطو نفتاده هذا هو dadka qaar baa mar hadii jeer marka lagu wada kalsoonaan naftaada wuxuu qoranayaa sidee baan ugu kalsoonaan karayaa naftaydi iyo shakligayga qaabkaygi oo kalsooni afiqatu bi nafsi waxay noqotaa inaad qaabkii ama ficilaaadkii aad sameynaysa aad ku kalsoonaato iyo sidoo kale inaad ku kalsoonaan karayso shakligii marka wuxuu qoranayaa wanaag dhegeysataa ama aad basataa nasaaixda sheegaysa kalsoonida nafta dhista oo maxaa la dhahdaa aad dhegeysiga aad badsataa kuwa ka sheekeynaya inaad si kalsooni nafta ugu horeyso maxaa la dhahdaa marka la eego waxyaabaha badan ee la xiriira sida Sheekh Mustafa oo kale qodobka labaad waxaan ku nadiif maca nafsi inaad noqoto mid u dhibirsan naftaada u dhibirsan inaad noqoto qodobka saddexaad waxa weeyaan sagana al-hubbu ghayra al-mashruud min nafsik inaad jeclaato jacayl aashar ku xidhnay naftaada waxay 100% mas'uul ka tahay كورنا وقاعد كرسان كرسوني ده نفط هذا بناء النقاط القوة الخاصة فوق سيقاده ملها تكون عشتين ستة كلادية بالنفتر هي عبد الستو إن الوقت اللي قادته كليه قضاء بعد الوقت مع النفس إن الوقت اللي قادته وقت بدون ولي بنفط هذا أديكو محل هذا تحدث مع النفس ما ين نفط هذا شيء كسينايا كن فخورا بإنجازاتك واحد نقطة مد كفانا وحيابي هروسو دافع كل جوليستي أسس الأفكار الإيجابيات واحد يصدق الأفكار الإيجابيات كأيضا أروسو تعلم الحزمة برها الأضيق برو هذا بوحن هلكن كقولنا وحيابها سبب جرت أبوين أقف كلسوني ونفته واي صارت تصنيح مقارنة بالآخرين إن أدتك كلا إسبار بنفتو dadka kala hadda isbarbar dhigto waxa uu garan waayay doonta kalsoonida aad naftaada ku qabto waxyaabaha waxa lagu yareeyaa afiqatu al-insaan bi nafsi waxyaabaha sidoo kale maxaa yareeyaa in qofku naftiisa ku kasoonaado arasayl sabiya
jirimka dadka social media kala tusaalahaan sawir buu soo dhigay falcelin badan baa laga sameeynaya falcelinta qaarna qaar ijaabiyad oo qofkii wixii wanaagsan lagu dhiirigelinayo falcelintaas qofkii haduu doono wax wanaagsan ka sameeyay baa laga yaabaa in laga sheego yani nuqdad taani kale oo aanu ahayn taasoo kale waxay keentaa qofkii kalsoonidiisa yar inuu hoos u sii dhacdo marka taasoo kale inaanu ku saameynin ba weeyaan rasaayil salabi dadku way jiri karaan dad iska ka dhaleecaynaya dad waxay doonaan iska sheegaya marka weeraan adigu kalsoonidaada aan u baabiin hadaba halkan waxa su'aal baa la isweydiiyaa hada musiqatu nafsi marad mi xanuun ma yahay xanuun mi dadka soo koojeeda ku takhasusay waxay sheegaan inay yahay maxaa la raada ka soo gali karo marad qayb kamida oo igtikaabka loo yaqaan yani qofkaas uu niyad badan inuu ka muuqdo waxa la raada hadaba markaan rabo inaan cilaajiyo waxaa soo dhaw waxyaabo problem aan ku xalinayo Soomaaliya marka waxa rabaa imika inaan cilaaj ku sameeyo oo ku xalinayo saqat bin nafsi ama aan kor ugu qaado ama aan yeeshaba شفاء كله هو القرآن الكريم ويان التعود النفسي على الجميع السلوكيات إن تكدقن دقة دمان جميع السلوكيات دمان رقمها ضودا التي تجعل تاسوكي ليس إقداما إلى إقدار الشجاعة والجرأة إن الهراء مرتا أما الله ما ذكر السوني يدي لنا هذا هو مصور تقلت هيبال السويدية إن كالسوني ذا سوء عشت ها ويسور تقلت inaad kalsoonidaada soo ceshato marna ma suurtagal inaad soo ceshato kalsoonidaada ma suurtagal inaad soo ceshato kalsoonidaada oo marka ay aanay ka wada baabi'inay in yar ka yara nusqaantay markaas oo kale waxaad sameynaysaa dhammaan xalimaadkii ama xalintii hore aan soo sheegnay waxyaabii lagu kordhinay marna totalism badan korto markuu ku dhaco xaaladan aan sheegay maradka ayda al-iktiaab markuu ku dhaco marka inta ku barnaamijkeena caawa insha Allah waxaan rajaynaynaa in badan ka faa'iido doonaan waata ma santa gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii saqanaa runtii waana mowduuc muhiim ah bal hal iyo laba maxaad kula talin dhalinyarada ugu horeyn waxaan kula talinayaa qofku inuu sameeyo kalsoonida naftiisa inuu dhisaa badan bay ka qaadan doontaa waqti laakiin qofku inuu ku dadaala in badan qanaacada shayga qanaaco leeyahay inuu yeesho hadii uu qofku qanaacadiisu dhisan tahay kalsoonidiisa naftuna way isku xiran tahay 100% qanaacada naftu waxay keentaa inaad wax walba oo laga sheego xataa hadii sax yihiin in badan aanay wax adiga ku saameyn aanay kugu yeelan qodobka la talinaya waxa weeyaan qofku inuu sameeyo muqaaranada shakhsi maca aakhir inaa dadka kale isbarbar dhigin hadii ka lacag badan yihiin hadii ka aqoon badan yihiin hadii ka fiican yihiin kulli waa in adigu dad isbarbar dhigin adiga aad birina adiga ahaanaysa adigu naftaadu baatay wax dadka kale ka galay baan jirin marka waxa sameynaysaa mar badan in badan isku day inaad dadka kale aanad isbarbar dhigin waad mahadsantahay qofka haduu labadaas sameeyo faasiinaya 100% kalsoonidiisu ay dhismi doonto waad mahadsantahay waa hagaag daawadayaal taasina waxa ahayd Najma Maxamed oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee reer Somaliland oo goorsi horeysay khadka telefoonka iigu waramaysay run ahaantii mowduuc aad u muhiim ah ayaan waxaan rajaynayaa inay daawadayaal tiro badan ay ka faa'iidi doonaan oo ay talooyinka aqoon-yahanku la wanaagay ay fiici doonto intaynu kan mid labada iskugu imaanay geesteeda waxaan kaga tagayaa nabaday